November sanadkii 1997 magaalo lagu magacaabo Plainfield oo ku taal gobolka Wisconsin waddanka Mareykanka boolisku waxay raadinayeen haweeney la waayay oo lagu magacaabo Bernice Warden laba ka mid ah booliska raadinaya haweeneyda la waayay ayaa waxay yimideen beer uu lahaa mid ka mid ah dadka degan magaalada Plainfield markii ay beertii yimideen oo ay baareen mid ka mid ah booliska ayaa tooshkiisu wuxuu ku dhacay wax meel ka laalaada markii hore waxay moodayeen inay tahay ugaar markii ay ka soo ag dhawaadeen oo ay si fiican u fiiriyeen waxay arkeen inuu yahay meydka haweeney intaa kadib labadii askari meesha waa isaga carareen waxayna arrinka la socodsiiyeen saaxiibadood markii ay booliska imaadeen oo ay baareen beerta waxay dah qaadeen sirta mid ka mid ah dilaayadii ugu caansanaa taariikhda Mareykanka waxay dah qaadeen sirta dilaa lagu magacaabo Ed Gein Edward Theodore Gein ama ku caana magaca Ed Gein wuxuu dhashay 27 Agoosto sanadkii 1906 wuxuu ku dhashay magaalo yar oo lagu magacaabo La Crosse oo ku taal gobolka Wisconsin waxa iska dhalay oday lagu magacaabo George Gein iyo haweeney lagu magacaabo Augusta Gein waxa la dhashay wiil ka weyn oo lagu magacaabo Henry Gein hooyadii Augusta waxay ahayd habar Kirishtaana oo ku adag diinteeda ugu dambeyntiina ku adkaanta diinteeda waxay gaartay inay dadka oo dhan shaki ka qaado una aragta dadka oo dhan inay yihiin dambiilayaal iyada keliyana ay tahay qofka aan dambiga lahayn sidaa darteed waxay go'aansatay in ilmaheeda aysan ku korin magaalada La Crosse kadibna waxay iibiday dukaan ay lahaayeen kadibna waxay u soo guureen tuulo kale oo yar oo lagu magacaabo Plainfield oo ku taal isla Wisconsin tuuladaas Plainfield waxay ahayd tuulo aad u yar oo ay ku nool yihiin dad aad u yar oo marka ay ugu bataan gaarayay 800 oo qof oo kaliya aabihiis wuxuu ahaa oday ka duwan hooyadiis gabi ahaanba isagu wuxuu ahaa oday cabtooya oo aan waqti u hayn ilmihiisa iyo wax la mid ah markii ay yimideen magaaladaas Plainfield waxay ka iibsadeen beer kadibna waxay ku tiri hooyadood Ed Gein iyo Henry dadka magaalada degan waa dambiilayaal intooda badan oo waxay galaan maanta oo dhan dambi sidaa darteed waa ahlun naar iska ilaaliya hala saaxiibina hana ka ag dhawaanina waxayna u diiday inay wax saaxiibaad samaystaan waxayna ku xabista beerta waxay joogi jireen beerta oo waxay la joogi jireen hooyadood iyo aabahood oo kaliya ugu dambeyntii markii soo yar weynaadeen waxay ku qasbanaatay inay iskoolka geeydo markii ay iskoolka geeyday waxay u diiday inay wax saaxiibaad samaystaan haddii ay saaxiib samaystaanna mar walba waa ay ka eri jirtay ilmihiina sida ayay ku koreen sida ayayna ku weynaadeen waxayna ku koreen kelinimo iyaga oo ku nool beerta oo hooyadood oo kaliya dadba ka yaqaana arrinkaas oo keenay in Ed Gein aysan maskaxdiisa korin mar walba jirkiisa oo kaliya ayaa korayay laakiin maskaxdiisu ma aysan korin ugu dambeyntii iskoolkii ay ka reebtay sababtoo ah qolada iskoolka waxay ku dhaheen waa cunug dabaala oo aan maskax lahayn oo waxba garan markii ay ka reebtay kadib Ed Gein waxa kaliya uu ku fiicnaa waxay ahayd inuu akhriyo jaraa'idka ka hadlaya sheekooyinka carruurta ee comicska lagu magacaabo waa jaraa'id ay ku qoran yihiin sheekooyin superheroes iyo waxyaabo noocaas ah oo carruurta loogu talagalay buugaagta ka hadlaya waxyaabahaas iyo jaraa'idka ka hadlaya sheekooyinkaas ayuu mar walba akhri jiray wuxuuna jeclaa Ed Gein mar walba inuu wax akhriyo ugu dambeyntii markii la soo gaaray sanadkii 1940 aabahood George ayaa geeriyooday waxaana isku soo haray hooyadood iyo iyaga oo kaliya ilaa iyo xilligaasna waxay la noolaayeen hooyadood inkastoo ay noqdeen nimo waaweyn markii uu aabahood dhintay kadib wuxuu bilaabay walaalkiis ka weyn Henry in mar walba hooyadiis ay isku dhacaan oo uu mar walba ku eedeeyo inay noloshooda ku ciyaartay Ed Gein markii uu arkay walaalkiis oo hooyadiis la dagaalaya wuxuu u arkay inuu yahay dambiile sababtoo ah hooyadiis wuxuu u arkayay inay tahay qofka kaliya ay qasab tahay in wax walba ay tiraahdo la maqlo wax walba ay u dirtana la qabto intaa kadib sanadkii 1944 maalin maalmaha ka mid ah waxaa dab qabsaday beertooda kadibna isaga iyo walaalkiis waxay u baxeen inay beerta soo damiyaan muddo kadibna waxaa soo laabtay Ed Gein oo kaliya markii ay weydiiyeen walaalkiisna wuxuu u sheegay in isaga iyo walaalkiis ay kala baxeen markii ay beerta tageen oo nin walba dhinac ka daminayay walaalkiisna uusan ogeyn meesha uu aaday kadibna waxay soo aadeen beerta si ay u raadiyaan muddo yar markii ay raadiyeen kadib waxay heleen isaga oo meyd meydkiisana waxaa madaxa kaga yaalay dhaawac sidoo kalena dab kuma uusan oolin jirkiisa
oo dab gubay uma uusan geeriyoon. intaa kadib booliska markii ay baareen meydka waxay sheegeen in neeftu ay ku dhegtay oo qaaca uu neefta ku dhajiyay sidaana uu u geeriyooday. dhaawaca madaxa kaga yaalna inuu yahay markii uu dhacayay inuu dhulka ku dhufsaday. laakiin dambi baarayaasha qaar waxay aaminsan yihiin in walaalkiis uu isaga dilay oo walaalkiis uu ahaa qofkii ugu horreeyay uu dilay. walaalkiis markii uu geeriyooday kadib hooyadiis naxdintii ay ka naxday darteed ayay xanuunsatay, arrinkaasoo keenay in 19 bilood kadib ay geeriyooto. Ed Gein isaga oo kaliya ayaa qoyskii ka soo haray. intaa kadib Ed Gein isaga oo kaliya ayuu wuxuu isaga sii noolaaday beerta, sidoo kalena wuxuu bilaabay inuu wax akhriskiisa badiyo. 1957 bishii November waxay ahayd dadka magaalada Plainfield xilliga ay ugaarsadaan ama xilliga uu bilowdo xilliga ugaarsiga. sidaa darteed ragga jooga magaalada intooda badan waxay u bixi jireen ugaarsi, laakiin Ed Gein isagu ugaarsi uma uusan bixi jirin. 16 bishii November 57 wuxuu yimid dukaan ay lahayd haweeney lagu magacaabo Bernice Warden. markii uu dukaanka yimid haweeneyda wuxuu ka iibsaday oolyo, kadibna wuxuu saartay baabuurka, kadibna uu soo laabtay. markii uu soo laabtay kadib Bernice wuxuu ku yiri alaab ii soo qabo. markii ay alaabta ku sii jeesatay wuxuu la soo baxay qoray, kadibna madaxa ayuu xabad kaga dhuftay. kadib meydkeedii waa uu qaatay, kadibna baabuurka ayuu saartay, kadibna waa uu la tagay. dhowr saacadood kadib markii ay raggi soo laabteen dukaanka waxaa yimid wiil ay dhashay oo lagu magacaabo Frank. markii uu dukaanka yimid hooyadiis waa uu waayay, kadibna wuxuu bilaabay inuu dukaanka ka raadiyo. markii uu cabaar ka raadiyay kadib wuxuu arkay dhiig meel ku yaala. intaa kadibna wuxuu la xiriiray booliska. markii uu booliska la xiriiray wuxuu u sheegay in qofka ugu horreeya uu ka shakisan yahay uu yahay Ed Gein. sababta wuxuu u sheegay in Ed Gein maalmihii ugu dambeeyay uu hooyadiis dhibayay. intaa kadib booliska waxay imaadeen dukaanka. markii ay baaritaan ku sameeyeen dukaankana wixii ugu horreeyay oo ay heleen waxay ahayd rasiid uu ku qoran yahay magaca Ed Gein oo ah rasiidkii uu oolyada ku iibsaday. rasiidka wuxuu kaga tagay miiska. sidaana waxay ku ogaadeen in rasiidkan uu yahay rasiidkii ugu dambeeyay ee dukaanka laga jaray. sidaana waxay ku ogaadeen in Ed Gein uu yahay qofkii ugu dambeeyay ee arkay Bernice iyada oo nool. intaa kadib boolisku waxay raadiyeen Ed Gein, kadibna waa ay soo xireen. kadibna 2 nin oo ka mid ah booliska ayaa waxay tageen beerta si ay u raadiyaan Bernice. markii ay beerta yimideen mid ka mid ah ayaa wuxuu arkay wax meel ka laalaada. markii ay ka soo ag dhawaadeen markii ugu horreeyay waxay moodayeen ugaar maadaama la joogay xilliga ugaarsiga. markii ay si fiican uga soo ag dhawaadeen oo ay arkeen, waxay arkeen inay tahay meydka haweeney laga saaray xubnihii gudaha jirka. kadibna waa ay cabsadeen, labadoodina waa ay carareen. intaa kadibna waxay la socodsiiyeen saaxiibadoodii kale ee booliska arrinka ay arkeen. arrinkaasoo keenay in booliska maalinkii xiga ee beerta yimaadeen, kadibna ay ku sameeyaan baaritaan ballaaran. markii ay beerta baareen waxay ka heleen meydka Bernice Warden. wax meesha ka laalaaday wuxuu ahaa meydkeeda. sidoo kale waxay ka heleen 12 madax oo ah madaxyada bini'aadamka. madaxyada ay ka heleen waxaa ka mid ahaa madaxa haweeney la waayay 3 sano ka hor. haweeneydaas waxaa lagu magacaabaa Mary Hogman. sidaana waxay ku ogaadeen in Maryna uu dilay. markii ay meesha sii baareen waxay arkeen wixii ugu layaabka badnaa oo ay weligood arkaan, waana waxa uu ku caanbaxay dilaagan. waxay meesha ka heleen kursi laga sameeyay harag bini'aadan, galoofis laga sameeyay harag bini'aadan, dhar laga sameeyay harag bini'aadan, iyo sidoo kale mask laga sameeyay harag bini'aadan. weliba wuxuu sameeyay maskiga meesha faruuryaha ku aadan ayuu wuxuu u mariyay roseto. sidoo kale waxay ka heleen beertiisa xubno bini'aadan oo go'go'an oo tiro badan. markii ay booliska horeysteen oo ay weydiiyeen, isla markiiba wuxuu qirtay inuu dilay Mary Hogman iyo Bernice Warden. laakiin inta kale wuxuu u sheegay inay yihiin meyd uu qubuuraha ka keenay. siday waxaana dhan ku bilowdeen markii ay hooyadii geeriyootay kadib wuxuu dareemay murugo. arrinkaasoo keenay in buugaagtii uu akhri jiray ee sheekooyinka carruurta uu iska dhaafo. kadibna wuxuu bilaabay inuu akhriyo buugaag ka sheekaynaya sidii ay naasiyiintii Jarmalku xilligii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka ay dadku u ciqaabi jireen. markii uu muddo akhriyay kadib wuxuu go'aansaday in si sheekooyinkan uu u fahmo waxa ay ka hadlayaan ama waxyaabaha ay jirka bini'aadamka ku sameyn jireen naasiyiinta, inuu ogaado jirka bini'aadamka iyo sida loo qalo. kadibna wuxuu soo iibsaday buugaag ka sheekaynaya xubnaha bini'aadamka iyo sida loo qalo iyo meelaha ay ku yaaleen. muddo markii uu akhriyay kadibna wuxuu go'aansaday inuu tijaabiyo. si uu u tijaabiyana meesha ugu dhow uu ka keeni karay meyd uu ku tijaabiyo waxay ahayd inuu qabuuraha tago.
kadibna wuxuu bilaabay inuu qubuuraha tago meydna uu ka soo qaato si uu tijaabooyin ugu sameeyo. markii ugu horreeyay wuxuu u sheegay inuu wararka dhageysan jiray. markii uu ogaaday in qof tuulada u dhintay oo la duugayna habeenkii ayuu tagi jiray qabriga, kadibna waa uu soo qodi jiray meydka oo dhan ayuuna soo qaadi jiray, ama meydka haddii uu xubno kaga baahan yahay xubnahaas ayuu ka soo qaadi jiray. markii uu soo qaato meydka wuxuu ku sameyn jiray tijaabooyinkii uu buugaagta ka akhriyay. sidoo kale wuxuu ka bixi jiray haragga. sidoo kale wuxuu u sheegay in dharka uu ka sameeyay haragga dadka uu gashan jiray. dadka horta waxay ahaayeen dhammaantood dumar ayay wada ahaayeen. wuxuu u sheegay inuu gashan jiray gloveska gashan jiray, kadibna maaskiga uu gashan jiray, sidaana uu ku soo xasuusan jiray hooyadiis. markii uu arrinkaas muddo waday kadib wuxuu go'aansaday in meyd keliya uusan ku samayn tijaabooyinka, uu dad caadiya oo nool dilo kadibna uu ku sameeyo. qofkii ugu horreeyana waxay ahayd Mary Hogman. ugu dambeyntiina wuxuu dilay Benny Sworden. intaa kadib boolisku si ay u hubsadaan in sheekooyinka uu sheegay uu dhab yahay in kale, waxay dib u qodeen qabriyadii uu u sheegay inuu meydadka kala soo baxay. markii ay dib u qodeen waxay ugu tageen qabriyada qaar inay eber yihiin uu meydka kala baxay. wuxuu sameyn jiray markuu meydka kala baxo dib ayuu u aasi jiray oo sidiisii hore ayuu ka dhigi jiray qabriga isagoo qodan kama tegi jirin. markii ay qabriyada baareen qaarna waxay ugu tageen xubnihii bini'aadamka uu jarjaray, kuwii uu meesha uga tagay kuwana waa u qaatay kuwana waa uga tagay. xubnihii uu meesha uga tagay ayay ugu tageen, qaarna waxay ugu tageen iyagoo faaruqa oo meydadka oo dhan uu ka qaatay. sidaa ayayna ku hubsadeen inuu run sheegayo oo meydadka inta ugu badan uu qabriyada ka soo qaatay. intaa kadib waxaa lagu eedeeyay dilka Benny Sworden waxaana la soo taagay maxkamad. laakiin maxkamadda waxay sheegtay inaan la maxkamaday karin maadaama maskax ahaan uu jiran yahay. kadibna waxaa la geeyay cisbitaalka dadka walwalan. noloshiisa inta ka dhimanna wuxuu ku jiray cisbitaalkaas. wuxuu geeriyooday July sanadkii 1984 wuxuuna ku geeriyooday cisbitaalka dadka walwalan. sheekadiisa ninkan caan ayay ka noqotay xilligaas Mareykanka, arrinkaasoo keenay in dad badan ay usoo dalxiis tagaan magaalada Plainfield, gaar ahaan gurigii iyo beertii uu deganaa. ugu dambeyntii dadka magaalada maadaama ay sumcad xumo magaalada ku caanbaxday, gurigiisii dab ayay qabadsiiyeen, beertiisina booliska ayaa ka takhalusay oo waa la baabi'iyey. sidoo kale waxaa jira filimaan laga sameeyey oo filimaan cabsiya iyo filimaan sheekadiisii ka sheekaynaya. waxaa ugu caansan filim lagu magacaabo In the Night of Moon, iyo filim kale oo lagu magacaabo Ed Gein, The Butcher of Plainfield, iyo filimaan kale oo badan. sheekadeennii maanta intaasay ku eg tahay. tan iyo kuleeto dambe waxaan idinkaga tegayaa amaan Allah.